maanta waxaan idin wada dardaaran dhiirigelin ah aabbo ayaa waxa uu la dardaarmay wiilkiisa isagoo ku leh wiilkaygiiyo wax kasta oo macaan ayaana dhimiyey mana arag wax caafimaadka ka macaan sidoo kale wax kasta oo qarar ayaana dhimiyey mana arag wax ka qaraar badan dad inaad u baahatid wiilkaygiiyo wax kasta oo culus ayaan qaaday mana arag wax ka culays badan deyn aad qof ka qaadatay sidoo kale waxaan soo arkay dad maalqabeen ah mana arag qof maalkiisa ku qanacsan xitaa kuwa innicab ayaa ila coloobeen mana arag wax iga cadowsan naftayda wiilkaygiiyo dharkii ugu qurux badnaa ayaan soo xirtay mana arag haddii qurux la yidhaahdo wax ka qurux badan alla kacabsiga sidoo kale laba xasuusanow intaad nooshahay oo ay naftu kugu jirto xuska ilaahay iyo geerida had iyo jeer ku ducaysay inaad hesho indha ka arka dadka waxa ugu wanaagsan qalbi cafiyo waxa ugu xun ee lagu sameeyo maskax hilmaanta wax kastoo xun iyo inaad noqoto ruuxan marnaba lumin rumaynta allah subxaanahu wa tacaala iyo raacadda sunnada nebiga naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee marnaba ha u ogolaan in qofku liido ama ku dareensiiyey inaadan qiimo lahayn alla waxa uu ku abuuray ujeeddo cad alla ayaana ku karaameeyey ha noqon qof afka un wax ka sheega kana go'aamiya laakiin ha wada socdaan go'aankaaga iyo waxqabadkaaga marnaba ha isku mashquulin hana ka fikirin gafkii shalayto waayo berri waa fursad kale oo aad ku sixi kartid intii shalay qabyada kaa ahayd mar walba u fakar si fog u hadal si deggan una soco si tartiib ah hal mid lamaankaaga ku hay ogow inuusan jirin qof liita balse waxaa jira qof aan ogeyn halka uu ku wanaagsan yahay ama uu ku fiican yahay xusuusnow in wanaagu uu yahay maalgashiga keliya aan weligiis khasaarin abad ka dheerow saaxiibada beenta ah waayo waa sida harka ama hooska oo kale had iyo jeer way kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto balse ma arkaysid saacadaha aad mugdiga ama dhibaatada ku jirto afar lahow kuna liibaan dulqaadka dhulka lahaw deeqsinimo buuxda lahaw deymada tukaha lahaw daydaysiga digaaggana lahaw kuna kalsoonow naftaada kama liidatid shimbirgeed dul fadhiga marnaba kama cabsatay in laanta ay saaran tahay la jabto sababtoo ah kalsoonidoodu ma ahan laanta balse waa baalasheeda had iyo jeer is aamin oo ku kalsoonow naftaada allana tala saaro isaga amuurahaaga sahli doonay insha allah sidoo kale ogow in xabsiga ugu weyn ay dadku ku noolaadaan uu yahay cabsida iyo kawalwelidda waxa dadka kale ka aaminsan yihiin iyaga ka dheerow inaad qof si xad dhaafa u jeclaatay ama aad ugu tiirsanayd waayo hooskaagu waa uu kaa tagaa markaad mugdi gasho iyagana waa ay ka sii fududahay inay kaa tagaan haddii dhibaato ku soo wajaho ugu dambayn waxaan allah subxaanahu wa tacaala idinkaga baryaya inuu allah idinkaga jawaabo ducadiina gaarka idiin ah allah ha masaxiilinta idinkaga timaada adinkoo keli ah allah ha baabi'iyo wax kastoo aad ka cabsataan ee sirta idiin ah hana idin gaarsiiya halka aad doontaan ama aad rabtaan inaad haddaad nagu cusub tahay subscribe-ta like-ta hanala dhaafin also commentiga ha ilaabin inaa hoos noogu soo qortid waayo subscribe aana siisa dhiirigelin ayay noo tahay iyo inaa hore usii socono waa mahadsantihiin.